waxaad la socotaan ilaa muddo dheerba oo hadda aad ka soo bilaabaysaan 23dii baraagaha iyo dhulka dadka shacabka ah ay dhisanayeen mar kastaba waxa ka taagnaa khilaafaad waxaan filayaa 79 baraagahaas waxa loo burburiyay kaliya daaq inayna ahayn laakiin waxaan qabaa ilaa maalintaas waxa ka jiray mar kastaba ama gacan ka hadal ama khilaaf u dhaxeeya dadkii deegaanka degayay arrimaha marka waxay keeneen in dad badan ku barakaco in dad badan lagu laayo in amni darro ay ka dhimato meeshii in daaqii waxyeello xun ay soo gaarto waxay saamaysay amnigii waxay saamaysay muxuu ahaa daris wanaagii waxay saamaysay daaqii intaba arrintaas muddada dheer soo taxnay mar haddii halkaa ay marayso oo arrintaasu arrin muddo dheer soo jirtay ay tahay dowladda Galmudug oo madaxweynuhu hogaaminayo waxaa la go'aamiyey arrimahan soo socda kow baraag dambe iyo dhul dambe oo aan xukuumadda Galmudug ayna go'aaminin gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinkooda oo aan sharci loo haysanin inaan la dhisi karin ma aha deegaankan qalanqale laakiin waa dhammaan Galmudug oo dhan sababtoo ah waxa weeye arrimahan inii soo sheegnay oo amnigii wax u dhimay oo daaqii wax u dhimay oo dad badan ay ku leedeen arrintaas waxay noqotay arrin marka aan banaanka laga joogi karinin oo marka dawladdu ay mas'uuliyadeedii la wareegtay qodobka labaad waxa weeye oo furan dadka daaqiisa meeshii dhulka kan daaqa ah dadku waa wada degan yahay meel baa roob ka daahaya meel baa abaar noqonaysa meesha daaqa ah nin kasta waa u furan tahay Galmudug waa u furan tahay ninku meeshuu rabo inuu daaqo waad ogtihiin dowladdan hadda aan samaysanay ama aan dhisanay waa dowlad cusub waxyaabaha hadda aad kulligiin haddii dowlad xoog leh maanta ay jiri lahayd shaqaaqada halkan ka dhacday ama sida hadda loo wada hadlayo looma wada hadleen waxa taas keenaysa waxa weeye inaan weli dowladdu ay lugaheedii isku dibaridan laakiin way soo socotaa sida dhulka aan maanta uga hadlayno kale in hubkana looga hadlo ama ha waaweynaadeen ama ha yaraadeen waxaan marin doonaa haddii alla idmo xeer baarlamaan baan marin doonaa waad ogtihiin hubka haddaan gacan koontaroosha ayna jirinin dhibaatada uu geysan karo ama dhibaatada uu dadka u geysto shacabka waad ogtihiin waxa weeye marka hubka inuu galo gacan aamin ah oo ilaalin karta oo wax badbaadin karta oo amar la'aan aan cidna ku ridinin hubka inuu galo weeye waxa halkaas markay kaga cad wixii hadda maanta halkaan uga dhawaaqnay iyo waxa soo socda dowladda Galmudug wixii ayadu ay xaq u lahayd haday dhul tahay haday amni tahay haday adeeg tahay kulli in ayadu mas'uuliyadeeda qaadatay waxaan ka codsanaynaa marka hay'adaha amniga ama la amraya dhamaantood oo Galmudug inay arrintaas sida ay tahay u fuliyaan bacdama arrintaas muddo dheer ay gacan ka hadal iyo dhawaato ay shacabka Galmudug ay ku keentay waxaan codsanaynaa hay'adaha amnigu shaqooyinka uga aadan inay ka qabsadaan waxaan sidoo kale taamreynaa degmooyinka oo dhan Galmudug meel kasta ha joogeen amarka sidaas inay u qaataan meel aan muxuu ahaatay si sharciya lagu bixina aan cidna iska xaarxaarinin cidna dhisan karinin cidna baraa ka samayn karin marsa haddii la yiri waad ogtihiin inta maanta dhisan xataa dowladdu oo soo socota dowladdu dhulka yaa iskale ama dhulka badso ama ku yaraatay lacag baa bari laga rabaa marka hore warqadii sharciga ahayd baa laga rabaa dhulka ku qaadan lahayd ama baraagta marka labaadna waxa daba socda waxa weeye in lacag joogta laga qaado sababtoo ah dhulka ownershipkiisa markii dawladdu ay ka baxday ama lahaanshihiisi wuxuu keenay in qofku meeshuu raba dhagax iska dhigtay meeshuu raba u jeexday isagoo kiiloomitirku uu rabo oo ku fiican u isqaatay baraag meeshuu rabo iska qodanayay ninkuu rabo isku dilay lahaanshihiina isagu isa siiyey arrintaas waa arrintaan rabno in Galmudug oo dhan cid kasta oo saamaynta ay ku leedahay iyo cid kasta inta ay ku leedahay inay ka qaadato haddii alla idmo inta markaan ka gudbo annaga maanta halka kan waftiga anaga ballaaran oo wasiirada iyo xildhibaanada ka kooban iyo dhammaan dadka waxgaradka ah iyo salaadiintii Galmudug xoogoodii maanta halka isugu yimid annaga booqashada maanta waxay ku ekaanaysaa qalanqale halkaan ku ekaanaysaa qalanqale meeshii waxay ahayd wax ka dhaceen oo dhibaatada ku dhacday Allah u naxariistee oo lagu laayay maalmo ka hor niman Soomaaliyeed halkaan lagu dilay ahayd qaarna ilaa hadda dhaawac u yahay meeshaas maanta ay booqashadan u ahayd waa soo aragnay
sidii u taalana waa aragnay wixii ama go'aankeeda ama taladeeda ama wada hadalkeeda waxaan ku samayn doonaa dhuusamareeb sidaan horey uga heshiinay guddigii labada dhinacna waxaan ka rabnaa inay yimaadaan dhuusamareeb wixii caawi ilaa biri laga bilaabmana aan gallo hawsha inta inoo dhiman shirkanagii maanta halkaasuu ku xiran yahay waxaan kusoo gabagabaynayaa faataxada inaad noo martaan culummo inoo ducaysaan ilaahay abshirta inuu na waafajiyo ilaahay muxuu ahaay nabad inuu noo soo dabaalo ilaahay roobka iyo barwaaqada kuwii calfaday inuu naga dhigo dowladdeena waa cusubtahay tii noo hirgasha ilaahay inuu ka dhigo faataxada inoo mara